السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي waxaan u maleynaa inaa mugdi ku jiro iyo dulqaata. Horta ayaantan waan iska xanuunsanaa, iska jiifay TikTok ma fiirinaynin. Dee khadkana uma badno walaalayaalow. Marka arrinta oo hadda TikTok ka taagan wiilka la dhahayo AJ ma la dhahaa Xasan, walaalkay Xasan. Waxaan rabaa arrintan inaan saddex meel u kala qaado. Soomaalida kale ee Soomaalideena social media ku jirtay waxaas mid baan dhahayaa. Reer Nairobi khaasatan, reer Foorka khaasatan, dadkii deganaa dabaqa la dhahayo 2000 deganaa mid baan leeyahay. Xasanna mid baan leeyahay. Xasan mid baan leeyahay. waxaan leeyahay Xasanow nin la yaqaanaa tahay, nin caanaa tahay, nin maanta magac iyo mansab leh baa tahay, nin dee maanta isku tashtay oo 40 jir oo waxaan ku iri xilligii raggu ugu fiicnaa marayaa tahay, nin dee reer loo maanta cidaan ilaahay mooyaane cid u baahnayn baa tahay. Okay, ka gudub. waxaan ku leeyahay waxaad soo xasuusataa foorka soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa dabaqaa deganayd maqaayadii yareeda ka hoosay jibsiga lagu samayn jiray soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa foorka maqaayada Dubai. internet, laba internet bay lahayd. internetkii la sinaa Dubai, leenka Dubai ku deganaa. maxaan ku raday iyo kii ka soo horjeeday ee dhanka bidixda ka soo ka qabanayay. labadaasna soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa dhalinyaradii reer Kaakuma ee saaxiibada ahaydeen. soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa internetka markaad tagto yaad ku kulmi jirteen, yaad la qaraaxaysan jirtay. waxaad soo xasuusataa dabaqaad deganayd, asxaabtaad ku lahayd, iyo meeshii dabaqa ka hooseysa maqaayadii jibsiga lagu samayn jiray iyo nafaqada iyo adduunka lagu samayn jiray ee galabtii la isugu imaan jiray lagu fiidsan jiray. soo xasuuso walaalo. waxaad soo xasuusataa jaakadii oo suudka iyo surwaalkii jeemiska iyo kabihii sportiska ahaa aad xiran jirtay. soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa dhalinyaradii meesha aad ku baashaali jirteen, ee isla kaftami jirteen, eed wada noolaan jirteen, eed wax ku cuni jirteen, wax wada cuni jirteen. soo xasuuso. waxaad soo xasuusataa gurigaad deganaydeen, falaygaad deganaydeen, B25 falaygu ku deganaa dadkii deganaa. soo xasuuso. Okay, ka gudub. waxaan ku dhihi lahaa walaalo, whatever ay tahayba maanta ilaahay unbaad u baahan tahay. bini aadan aan waalidka ahayn ood u baahan tahay ma jirto. Xasanoo walaale, waxaad samaynaysaa DNA waxweyn ma aha. waxaad samaynaysaa keliya DNA-ga qaad. hooyada hadday noqotana dee laabta gasho waa hooyadaaye. haddii hooyadaa noqon weydana de waa hooyo Soomaaliyeed, dee u abaalgud. waxaad tiraahdaa hooyo wiilkaagii Allah kuu sahlo. Easy way, you know, easy way. waxaa kuu soo haray dadkii deganaa dabaqa 2000ka. Xasan qofkii yaqaano like me isi soo muujiya, like me isi soo muujiya. Okay, waxaa ku saaray Soomaalida kale. Soomaalida kale ay horta soo dhawaada. war waa cad yahay. walaalkeen haddii hooyo kala dhashay, hadduu aabba kala dhalay, hadduu walaal kala leeyahay, imika 1 week almost intaan jirana waa la isjiijiidanayay. anigu damiir baan leeyahay. walaalkii aniga ila dhashay hadduu qof soo sheegto waan ka hadlayaa. waxaan leeyahay my brother, waay uga hadlay, anagu nala dhashay hooyadayna waa tan. qaay ahaanaan kaaga soo qaadaya. waxaa jirtay mar Nadiira Nayruus uu nin oday oo uu yiri anaa dhalay, oon adkaysan kari waayey, oon soo fadhiisto iri ma Nadiira dhashay, Nadiira anaa dhalaan ku iri. dadso walaashay macaan baa ay dhashay, you know. saan u soo hadlo damiirku ii qaaday ayaa damiirku u qaadi lahaa qof asaga la dhashay, ama walaal ha noqoto, ama habaryar ha noqoto, ama inaadeer ha noqdo, ama on the family-gan hadda social media soo galay aan ahayn, mar hore soo hadli lahaayeen. ma fahmaysaa? marka aan ugu ducayno inuu ilaahay qalbigiisa qabow ka dhigo oo maamadaas ilaahay uu ogoleysiiyo wiilka. intaasaa muhiima. waad salaamayaa Xasanow walaalo, boorka iska jaf, wax dhiban ma jiraan. DNA-ga bis qaad walaalo. ani intaasaa iga talaa. waad salaamayaa.